انت بنان كان نوجوتي داقدها تاغن إن أي مقل ويانا ونكعود بارنينا runtii maynan filaynin dad intan la eg in ay imanayaan holkan islihay laakiin waxaan aragnay maantana noocad in dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel walba ay joogaan in ay runtii damirkooda inuu soo jeedo diintoodana ay jecel yihiin ilaahay waxaan ka barinay qalbigiina diinta Allah ku sugo iimaanka Allah idinku sugo uurkiinana diinta Allah ku qurxiyo islaamkana mid idin dhowro Allah ka yeelo waxa aan mahad celinayaa runtii oo kulankan in uu racana noo suuro geliyay Ahmed Nuur Sheekh Ahmed Kilimanjaro naanastaas runtii uu leeyahay iyo runtii ku xigeenkiisa Zubair Abdulrazaq Jiir waa laba dhalinyaro ah إلهي حضورو حبركية ريروهدنا الله وبركية مدو أسبوع ما آني نسنين إن الخير كان دعو كورن كان أهرقل أي أسو جيدين ميلا بدنا أي أمرين شرعية فربضني وراغة فربضنا أي أكينين خرج كرمتي أولك قروح بدن ما آنو قرحانين حتى نرك الهدين مع المكهر لكن إيجا سوري قليك وحكلوا ولبا أي أتاجيهن هدنا أو أي نالف فديان أحمد واكن نعيق فديه وحين نوقف فديان هدنا إني أمانك إيراليان إنا نلسود نحجلين نحيي كل نوعنا ترى أنت لك مال إنه السوي مادان عد أقول ملها لكن إلهي كسرك إلهي فضلي يجا إنه سرق لي إلهي وحن كبرينا جناح سجى أي وطن أحمد نوا حق السكورت كجناعستة إسلي أيوم مدح كيهاي جناعستة إسلي أمانك أيوم حكيهاي قدومية إلهي وحن كبري شقديس الله كواسترو أمان إلهي حصيو نبت قليديس الله أتكيو إلهي وحن كبرني لمدن ويلين على الشقين لي خير إليه نريره هذا الله وبركيه أولاد دود إلهي صالحين هو غيره جناح السجير وطن الله كو إلاليو جعن بن آدم إلهي هكا كافيو عمر ودنا عافي ما عباد الدار الله سيو وحن كلو ما علينا يا فلان كان الشيخ سعيد الراقي إيو شيخ محمود مركوني runtii aan ogahay inaanay waqti haynin oo ay noo ogolaadeen in ay idin soo hor fariistaan iyagana waxaan leenahay talaabaday soo qaadeen ilaahay ajri xasanaad maalinka qiyaamada miisaankooda ha ugu cusleeyo reeray leeyihiin reerahoodana Allah u xifdiyo Allah u dhowro ilaahay waxaan ka bariyay waa dad aad isu jecel waxaadna ka dareemaysaa siday u kaftamayeen oo ay u wada qosliyeen ilaahay waxaan ka bariyay wax kala geey Allah ka ilaaliyo mar walba iyo meel walba ay joogaan kuwa nabad ku noolaada Allah ka yeelo waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa gabdhaha walaalaheena shaqeynaya tiimkan aad aragtaan runtii waqti hore yimaadeen oo ay halkan u yimaadeen in ay nidaamka ilaaliyaan shaqay ka soo tageen reeray ka soo tageen gabdhahaas Allah dhowro iyagana ilaahay waxaan ka bariyay gabdhahaas reerahoodii ganacsiga ka soo tageen ilaahay bedelkeeda khayr qaba ha siiyo waxaan kaloo u mahad celinayaa waxa inala jooga ducaad ayaa inala jooga halkan oo gabdha ah hadalkan dheereen maayo iyaga ayaa iiga dambeyn doona insha Allah taala iyo qolaha wiilo dhalinyaro ah oo nashiido yaro hal daqiiqo xijaabka runtii ka hadli doona waxaan intaanan kelimadaydan social media aanan dhihin waxaan fasaxaynaa labadan ducaad Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Saciid meel bay u degdegayaan kulan kale leeyihiin aan iska fasaxno insha Allah taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar وندعينا إن شاء الله سنبدأ خطة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. waxaa runtii halkan fadhiya waa Sheekh Yuusuf masaajidka Salaam 7 sano imaamka ahaa waa wiilkaas quruxda badan ee aad aragtaan gabdhaha la bixinay isagana qaybtiisa Yuusuf inuu ilaahay ha malaynin hal baan iimansanayaa walaalayaal كلمة بان ربا إنان إذن قارسيه مركو هوري هالكن وحان ربا
xaawakiin hooyadeen inaanay jooginna waa laga yaabaa laakiin gabdhaheedii baa jooga gabdhihii waxaa jooga walaasheena dhimatay muniish qisiiraan rabaa inaan idiin sheego ay gabar Mombasa degan ay ila wadaagtay wacdi badan ma hayo gabdhihii inay joogaan walaalaheedna waa u malaynaynaa aaway gabdhihii la dhashay ma joogaan gabdhihii muniish la dhashay ma joogaan qaraabadeeda waa joogaan soo maaha saaka gabar baa hurdada iga kicisay Mombasa ayay igala soo hadashay waxay tiri arrin la yaab leh ayaan arkay waxaan arkay anoonan jiifanin oo aanan gam'in laakiin gamaanyoonaya ayaa oo soo yara jeeda ayaa waxa ii timid hooyaday oo dhimatay hooyadeed baa dhimatay waxaa la socotay bay tiri muniish muna Mustafa ayaa la socotay dhar qurxoon oo cadcad bay siteen dhulka ay joogeenna dhul cagaaran ayuu ahaa aad u dhageysta waxa hooyaan ku hooyo xageed iska hesheen waxay tiri waan noolahay meel qurxoonna waanu ku noolnahay waan wada joognaa aniga gabadha waxay si doonaysaa inay kula hadasho waa taa la yaabay waxay tiri haye gabadha markii waan dhaariyay waxay tiri muniish ayaa si toos ah ila hadashay waxay tiri ilaahay horta waa ina xariistay laakiin social media sawiradayda la wareejinayo fiidiyoyaalkayga la wareejinayo aad baan u dhibsanayaaye u sheego dadka intaad aragtaan fiidiyoyaalkayga ha tirtiraana kow waxay kaloo tiri adiga anay isoo eegtay waa gabadha ila sheekaysanaysaa waxay tiri adiga qudhaada fiidiyoyaalkayga waad fiirsataa habeenkiiye iga xafiirsanina iska tirtir gabadhana waxay tiri waa runteedoo waan fiirsadaa waxay kaloo ii raacisay waa naxsanahay bay tiri waxay ii raacisay gabar bay magaceeda magacawday fanaanad ahaan jirtay oo ka baxday oo la yidhaahdo qaaliladan magacaasa ii sheegtay waxay tiri qaaliladan waan ogahay aniga dartay in ay uga baxday meediyaha markaan dhintay kuwa kalena inay ka baxeenna waan la socdaa waxaad ku tiraahdaan bay tiri yaanay dib dambe ugu noqonin fanka waan cabsaday bay tiri anigii hurdadiian ka soo kacay bay tiri waxaan raadiyey qof aan sheekada la wadaago walaalayaal fariintaas aniga qaan bay ugu ahayd inaan idiin soo gudbiyo laakiin waxaan rabaa waxa gabadhaasi aakhiro tagtay allaha u naxariistee ay ka cabanayso waa fiidiyoyaalkii ay duubtay iyadii way dhimatay saaxiibadiin bay ahayd allah u naxariistee waxaan markaa rabaa inaan la dardaarmo gabdhaha maanta jooga sida walaalkeena uu inoo sheegayey laayga ku raadinayay jirkooda inay bannaanka soo dhigaan hadhow yaa kaa bixin doona ilaahay baad ku dhaariye geeriduna waa xaq waxa been abuur ah ee social media ka socda waad garanaysaan ilaahay ee rasuulkiisa way og yihiin social media wayna ka hadleen allah yiri wajtanibuu qawla zuur ka fogaada gabdhayahow idinkaa yeegaya ka fogaada qawla zuurka waa maxay waa waxaan ku tirkuteenta waa waxaan barbagaandada waa waxaan fisqiga ah waa waxaan macsida ah waxaan ilaahay looga fogaanayo gabdhahan horaadkooda ruuxaya dambeedkooda ruuxaya jirkoodii iyo abuurkoodii bedelaya ku raadinaya quud ay cunaan wajtanibuu qawla zuur dadka wanaagsan ee ilaahay jecel yahay cibaaduraxmaan baa la yiraahdaa markii uu ka hadlayay rasuul ilaahay wuxuu yiri walladina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil lagwi marru kirama kuwana waqtigooda kullu min zurkan beentan waqti lumiskan baashalkan ana kullu min fisqi ma'si ilaahay kuwan haddii ay arkaanna aanan eegaynin waqti saaraynin ee ka fogaanaya xabiibka wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam aan ku gabagabeynaya wuxuu yiri raggii intuu la hadlayay dumarkii alaa unabbiukum biakbar alkabaa'ir ma idin sheegaa dambi ilaahay laga galo kuwa waaweyn haba la yiri waxa waayuu yiri al-ishraaku billah wa uquuq alwalidayn
ilaahoo loo shariig yeela waalidkoo caasi lagu noqdo wuu jiifay wuu soo fariistay sala allahu calayhi wasalam markaasaa wuxuu yidhi alaa wa qawlu zuur alaa wa shahaadatu zuur wuxuu yidhi wararka beenta ah ee la abuurayo wararka beenta ahee lagu sheekaysanayo iyo markhaati beenaalayaasha kuwa sheegaraynaya wallahi social mediahu ka hadlaya aad wuu jiifay wuu soo fariistay arrinka inuu weyneeyo wuxuu yidhi kuwa youtube-leyda ah wallahi waa youtube-leyda warar degdeg ah war degdeg ah ayaa la soo qorayaa kulligood saasay ku wada shaqaystaan war degdega waa waxaanan waxba ka jirin waa ku tiri kuteen nin baa la caayaya ummad baa la caynaya nacayb baa la abuuraya ummad baa la kala geynaya qabaa'il baa la isku diraya war degdeg ah ayaa la leeyahay hal saac ayuu fadhinaya oo u dhididaya dhaar buu maraya wuxuu leeyahay war laay gareeya oo sheegareeya oo sabiskaar gareeya gabaleelka furta gaarsiiya ayuu leeyahay eeg ilaahay baan ku dhaarshiye rasuulkan wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam calaamadda saacadda waxaa ka mid ah shahaadatu zuur in been ummadda oo dhan ay ku kulanto oo qaarna ay sheegaan qaarna ay sheegareeyaan bal u fiirsada dadka beenta sheegaya ee ilaahay ka furtay fisqiga fidinaya yaa fiirsada laifka kumanaan baa fiirsata laakiin dadka khayrka kaali arag shahaadatu zuur iyo waxaa ka mid ah shahaadadii xaqa ahayd oo la qariyo oo aanan la sheegin oo aanan la eeganin waxaan idin leeyahay gabdho yahow ilaahay horta idin dhowr waa ducayn doonaa nin saxaabi ah ayaa rasuulka u imanaya sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay rasuul allow saacadda goormay dhacaysaa mata saaca wuu fiiriyey waa nin wanaagsan wuxuu yidhi wamaa acdadta lahaa maxaad u diyaarsatay markaasaa wuxuu yidhi waxba uma aanan diyaarsanin ilaa annii uxibu allaha wa rasuulah ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclahay jacayl ayaan diyaarsaday u kaalay marka xadiiskan inaan idinku dabaqaan doonayaa khaasatan inta reer instagram inta reer tiktok inta social mediaha iyo youtube-yada ka ogaadha beentii brobagandada wadda maanta rasuulku wuxuu idin leeyahay war reer social mediaw maxaad u diyaarsateen saacadda ninkii wuxuu yidhi waxaan u diyaarsaday ilaahay iyo rasuulkiisa in aan aad u jeclahay wuxuu yidhi abshirayso marba haddaad si qalbiga ilaahay rasuulkiisa u jeceshahay anta maca man axbabta ayaa la yidhi allah 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 waxaad aakhiro la kulmaysaa lagula keenayaa qofkii aad jeclay anas ibnu malik radi allahu canhu oo xadiiska warinaya wuxuu yidhi wallaahi bacda alislaam farxad nooga weyn mana soo marin xadiiskan rasuulku uu leeyahay waxaa laydinla soo xashrinayaa qiyaamaha laydinla keenayaa dadkii aad jeclaydeen maxaa yeelay buu yidhi ilaahay baan jeclahay rasuulkaan jeclahay abubakar iyo cumar cusmaanaan jeclahay walow camalkoodoo kale aanan lahayn reer youtube-ow reer instagram-ow reer social media dhammaantiin reer youtuberow waxaan rabaa inaan idin weydiiyo saxaabigan jacayl ilaahay rasuul buu diyaarsaday idinku maxaad diyaarsateen afkiinana waxaad ka sheegaysaan waa in uu raacaa qalbigiina ilaahay baa idinku dhaariye in yar haddaan idin tusaaleeyo gabadha ilaahay intuu caafimaad siiyey qurux siiyey dabeecad fiican siiyey jir qurxoon siiyey intay soo baxday dukaamadan tagtay soo gadatay make up ilaahay ka caroodo jirkeedii beddeshay nalal soo gadatay ishor dhigtay hees gaal uu qaadayo aan kaadida iska dhaqin urayo qurumoon rasta iyo raamoola ah injiroola ah
heeskiisii iyo mid hindiyo mid madow afrikaan ah intay saaratay nalkii ishor dhigtay ruuxaysa horaadkeeda ama dambeedkeeda oo raadinaysa like 15 milyan heshay 20 milyan heshay 30 milyan xabadkeeda ku heshay barideeda ku heshay ilaahay baa idinku dhaariyey maalinkay dhimato yaa lala soo xashrinayaa